qodobka kale oo aadka muhiimka ah waxaa waaye waa technical analysis. Technicalkaas analysis waxaa waaye technical waa iska naqaanaa waa wax qofka oo istiraatiiji ama process oo marayo kale si oo u taxliiliyo. Technical analysis waxaa waaye waa istiraatiiji oo lagu fiirinayo kale dhaqdhaqaaqii hore ee suuqan iyo bilooyinkii ugu dambeeyay maalmihii kale meesha ku socday si qiyaas ugu qaadatay aa u fahamtay halka uu aadayo. Tusaale trend yaa noo yaalo oo ah in maxaa la dhahaa trendigan maalmihii ugu dambeeyay bilihii ugu dambeeyay kor u kacaho haddana wuxuu bilaabay suuqi inuu consolidation sameeyo hoos soo aado. So marka waxaa ogtahay haddii mar qiyaas waxaa qaadanaya maadaama suuqan kor ahay consolidation sameeyo range haddii suuqan oo inta kasoo baxo hadduu inta kasoo baxo inuu maxaa la dhahaa hoos aadayo. Haddii kor uu ka baxane inuu kor usii soconayo. Tusaale kale inta ka fiirino oo fundamentalka ah qodobka daaya fundamentalka practice-ka chartiska markaa imaatay waxaa arkay maxaa la dhahaa candle saan u weyn yahay halkiisa xabo candle qaarna way yaryar yihiin. Farqiga u dhexeeya maxaa waa marka horta candle-dan oo saanka u weynka oo halka xabo weynka ah waa news-yada aan kasoo hadlaynin. Intaas news-ka aan sheegnay mid kamid ah ayaa sababay inuu lacagtan saan u dhacdo. Fahmino? You see here lacagtan news aa sameeyay qaabka news-ka waa warbixinta soo baxday. Kaas waxaa waaye news-yada waaye. Technical-ka maxaa waaye inuu qofka go'aan ka gaaro oo inuu dhaho waayo tusaale kale lacagtan oo kale lacagtan down ay ahayd sax lacagtan sorry tusaale kale lacagtan saan u soo baxday low high samaysay low suuqa intoo consolidation ka galay meeshaan double top almost waxaa suuqan inuu bam soo dhac maaha. So marka technical qofka marka wuxuu ogaaday suuqan xiliyadiisa ugu dambeysay inuu down yahay. Marka hadda markuu go'aaminayo wuxuu ku xisaabtamaa haddii suuqan oo maadaama oo inta u noqdo inta istaagay inuu dhaho suuqan almost inuu soo nadiifiyo markuu soo nadiifiyo meeshaan oo kale inuu dhigto selkiisana halkaas ama intoo kale iska geysto trade-kan nadiifka ah inuu ka qaato. So hadda muuqaalka ugu dambeeyay oo short-iga ahaa aniga suubina trade-kayga inta ka qaatay this kan oo ahay intuusan ka dhicin aan soo duubay laakiin markii dambe wuu ku dhacay TP-gii so marka technical kaas aa la marka technical analysis marka waxaa la fiirinaa suuqa xiliyadii ugu dambeeyay meeshuu hadduu kor ahay wuu sii falanqeysi kadib waxaa ogaanaya trendiga labaad meeshuu aaday meesha kale. Technical indicator aa jirta indicators waxaa waaye waa tusayaal marka inta badan aniga ahaanteyda indicator ma isticmaalo laakiin qofkii danaynayo markaas kanaalo kala jiro oo indicatorada oo sharxayo iyo waxaas laakiin inta ugu badan waxaa waaye MA waa moving average oo kale exponential moving average relative strength dhammaan waxaa waa markaas waa indicator kala duwan oo loo isticmaalo. Marka on focuskan maba saarabo maba isticmaalo adina haddaad jeceshahay waa sii raadin kartaa laakiin inta uu interest muhiim ma lahan. Marka qodobkan kale wuxuu ka hadlaa noocyada ugu muhiimsan ee technical analysis-ka. Technical analysis markii la sameynayo saddex qayb waaye waa in classical charting isticmaashi ama price action isticmaashi ama technical indicator-ka. Technical indicator-ka waa kuwa aan soo sheegnay waa kuwan kanne classical charting-ne waa mid maxaa la dhahaa all division waaye oo general price pattern-ki waxaas la fiirinaa don't focus on laakiin kan ugu muhiimsan oo aan isticmaalo waxaa waaye waa price action movement of price understanding why price moves including candles pattern ashan price action-ka waa kan oo maxaa la dhahaa candle formation kan u samaysmayo kuu sheegaysa almost haddana waxaa arkay price-kan wuu soo dhacay almost waxaa arkay markuu soo dhacay inuu price-kii ku noqday oo haddana soo jebiyey oo haddana inta ku noqday oo movement-igan soo sameeyey so almost waxaa u jeeda price-kan movement-igan sameeyey in almost price-kan uu sii dhacayo oo hoos u sii socdo
يساعدك وبريس أكشن كوا بريس أكشن كان يصير معنيش حوال وكانل فورميشن كانلada sidii u samaysmayaan si markaas aad go'aan ugu gaartid suuqa meeshuu aadayo taas waxaa la technical analysis-ka sentimental analysis waxaa waaye inaad fahamtid mood of investors and market as a whole mood of investors waxaa la lahaa suuqa hadda intoo kale hadda suuqan ma furno oo kale waa waxa ku tusaya in suuqan oo dadka ku jira hadday cagaar yihiin oo kale wuxuu kutusaa investorska inay dadka buy ay suuqa wada galooyin halka markay redka ay tahayna inuu kutusaayo suuqan inuu inta badan uu sal yahay oo suuqa dadka sal galayaan ama inay wax iska iibinayaan sitaba analysis-kaas waaye laakiin waxaa u muhiimsan technicalka noo qaadan doonaa istiraatiijiyadiina waxayba tahay waa price action oo ah pure price action oo wax indicator kale iyo hawlo kale loo isticmaalayno we only focus on candle formation-ka candles formation soo samaysmo and then decide sidoo kale hadda technical analysis-ka qabtay tuso hadda price-kan waxa movement-kan wax dhacay waaye like hadduu dhicin oo kale waxaa aragtay oo kale suuqa inta markuu saan soo dhacay uu soo dhaqaaqmaho canalka intuu rejection ka sameeyo so marka candlekan keliya oo rejectionkan sameeyey ayaa wuxuu ku tusinaa in suuqa uu hoos soo aaday laakiin la celiyey la celiyey dadka buyers ayaa suuqa soo galooyin waxay rabaa inay suuqan jihada mee ka wareejiyaan hada waxaa u baahanta marka inaad sugtid markii la celiyey haddana waxaa aragtay in suuqii buy uu sii aaday haddana movement buy soo noqday ilaa iyo ugu dambeyn uu suuqii idan markuu inta jabiyo almost waxaa kuu fudud inaad suuqii inta kasira maxaa yeelay waxaad dareentay ama price action uu kuu sheegay in candleka oo selleriska oo suuqa looga awood batay oo buyerska imaadeen and then moving turn is enough at least hadaa inta hadaa dheeraata 44 pips enough for you muuqaalkeeni maanta oo market analysis-ka wax badan falanqeynta waan samayn doonaa oo insha Allah usbuuc walba axadii oo soo gelin doonaa muuqaala ku fundamental analysis-kana marka hadda wixii hordhaca qaadanay laakiin insha Allah mid mid waa u dul istaagi doonaa mid mid ugu soo hadli doonaa iyo mid walba iyo tusaalihiisa waxaan idin rajeynaa maalin wanaagsan khayr iyo caafimaad haddii aad tahay marka saaxiibada hore noo jooga waxaan ka codsanaya inaad channelka noo sii share garaysid si aad saaxiibo badan ugu gaaraan haddii aad tahayna saaxiib noo cusubna fadlan waxaan kaa codsanaya inaad subscribe like share comment noo saartid aad aa mahadsantihiin